wasiirka wasaaradda cadaaladda ayaa si rasmi ugu wareejiyay gudoomiyaha maxkamadda sare shaqaalaha iyo garsoorka maxkamadda. munaasabadani ayaa ka qabsoontay wasaaradda cadaaladda waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare, wasiirka wasaaradda cadaaladda, wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Maroodi Jeex iyo guud ahaan hay'adaha la shaqeeya ee ka madax bannaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marti sharaf aad u tiro badan. waxaana ugu horreyn bartaasi sharaxaad ka bixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda kaasoo soo bandhigay waxyaabaha ay ku wareejinayaan gudoomiyaha maxkamadda sare. marka shaqaalahaas waa shaqaale aad u badan, noocyo badan isugu jira, waana shaqaalaha hoosaadka maxkamadaha hoose ee Jamhuuriyadda Somaliland, haddii ay tahay kaaliyayaal, adeegayaal iyo qaybaheeda kala duwan ee maxkamadaha. sidoo kale waxaa munaasabadan isna ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda kaasoo isna ku hambeliyay gudoomiyaha maxkamadda sare culayska shaqo uu maanta kala wareegayo iyo waxyaabaha looga baahan yahay inuu u qabto bulshada. sidoo kale tirada gaarsiiyayaasha dalka oo dhan iyaguna 30 gaarsiiye ayaa ka shaqeeya iyaguna maxkamadda Jamhuuriyadda Somaliland. waxaa jira shaqaale hoosaadka nadiifisooyinka iyo waashmaanada ee aan idinku wareejinaynaa waa 100 adeeg iyo nadiifiso ayaan idinku wareejinaynaa. totalka guud ee shaqaalaha sheegay waxa weeye waa 518 shaqaalaha. intaas waan idinku wareejinaynaa. waxaan kaloo idinku wareejinaynaa shaqaalaha aan idin sheegay oo dhami ma aha shaqaale aan liis idinku wareejinayo. wasaaradda cadaaladda waxay ka samaysay madaxtaabad baan ku samaynay. waxaanu samaynay qof kasta oo shaqaalaha oo aan halkaa ka sheegay wuxuu leeyahay file system buu leeyahay iyo profile dhan buu leeyahay. filekaas oo kale ayuu leeyahay. waxaan raacnaa nidaamka shaqada hay'adda shaqaalaha warqadii ay soo qoreen ee foomkii laga buuxinayay ayaan soo qaadnaa. qof kasta oo shaqaalaha wuxuu ku yaalaa halkaa CVDC, waxbarashadiisii, canaantiisii, gradekiisii, ammaantiisii, qofkaas halkaas ugu yaalaa ilaa waxbarashadiisii hore. qof kasta oo shaqaalaha waan idinku wareejinayna waxaan idinku wareejin doonaa faylkiisa. sidoo kale isna waxaa munaasabadani ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda kaasoo ku hambeliyay gudoomiyaha maxkamadda sare. gudoomiyaha maxkamadda sare oo mikrofonka la wareegay ayaa uga mahadnaqay wasiirka cadaaladda oo waxyaabihii ay kasoo wada shaqeeyeen iyo shaqo wada joogta inay sii wada yeelan doonaan wasaaradda cadaaladda iyo garsoorkuba. Cumar Shaafi TV. marka waa hal jid, waa waaxo iskaabaya oo dhammaantood iskaashanaya, ma aha oo intuu ka yaataa baxda cadaaladda dhammaan waxay tahay azamaad dhacday arrin taariikhiya oo runtii xuskeeda mudan. waxaad ogaataan inaanay sahlanayn dhowr iyo 20 sanadood wixii lagu soo maamulay lagu socday in isbedelkeedii maanta waa la wareejinaya. dariiqii qaadanaysay intii soo martay wasiir kasta oo soo marayna qayb buu ku soo lahaa, ha adkaato ha dabacsanaato, laakiin wuxuu ilaahay maanta aniga chance iga dhigay una si lagu baagay inaan ku dhiirado oo aan qaato fursadaasi taariikhda gelaysa iyadoo aadan oo maskax furan aqoonteedina u lahaa asaguna uu isu horiyimido xoogay ah visionkiisa aragtiisana ay ka mid ahayd ayaa waxaa noo suurto gashay in aanu guud ahaanba anagoo la kaashanayna dhammaan meesha waxay shaqaalahaba waana runtii la rogay oo meel badan laga eegay in ay ku dhiiradeen oo ay igu dhiirigeliyeen shaqaaluhu markaa agaasimiga guud oo markaa joogay figa caalamiga rayo caasimadda Somaliland Hargeysa.